السلام عليكم. صاحبada aan jecelahay alxamdulilah sidaa u jeedaan waa caafimaad qabaa. wixii gaarayna wax saas u badan ma ahayn. dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay ka joogaan caalamka aadaan u faraxsanahay sida aad igala qayb qaadateen dhibka i gaaray oo dareenkiina aad igu muujiseen. runtii farxada ii tahay. waxaan rajeynayaa maaragtay inaan waqtiga intaan ka badanna aan sidaan iyo si ka badan sidaan idinkugu adeegi jiray idinkugu adeegi doono. insha allahu tanuna ma noqon doonto mid cabsi gelisa. shaqadii aan idiin haayay sidii ayaan idinkugu hayn doonaa. alxamdulilah waa caafimaad qabaa sidaa u jeedaan. maaragtay intii dacaayadda faafinaysa ee lahayd Afrika wuu dhintayna waa noolahay waa ikanaa. alxamdulilah waxaan wax iska qadar Allah oo ii qornaa ahaayeen. runtii maaragtay wax hadda weyn oo gaarina ma jiraan. hadda waxa weeye aadaan ugu faraxsanahay inaan idinla qaybsanayo farxaddeeda inaan caafimaad qabo. maleeshiyadii sida arxan darrada anigii intii nala socotayba rasaasta noogu asqaysay uu watay ninka la yidhaahdo Sane Cabdulle oo hadda la ii sheegay inuu Jowhar joogana waxaan rajeynayaa inay cadaaladda wajahaan. runtii waxaana ayaan darro ah Sane Cabdulle oo sheeganaya sargaal ciidan dowladeed inuu baabuur dowladeed oo buufsan oo ay mas-uuliyiin saaran yihiin uu rasaas ugu asqaayo si arxan darra inta isbaaro u dhigto uuna biriraqaysto oo furto moobayladoodii iyo hubkoodii iyo waxoodii uu qaato. waxa weeye waa arrin runtii ayaan darro ah dhaawacaysana dowladnimada Soomaaliya. waxaase iiga sii naxdin badan waxaa la ii sheegay inuu ka mid ahaa saraakiishii maanta madaxweynaha Soomaaliya markuu Jowhar tagay amnigiisa sugaysay. madaxweyne qaranka Soomaaliyeedaan u dhimanayo una dhaawacmayo. waxaanan ahay qof naftiisa u horay dowladnimada Soomaaliya. ma filayn dhagarqabihii sida arxan darrada ah noo laayay maaragtay noo dhibaateeyey inuu ammaankaaga maanta Jowhar ku sugo. waxaan filaya ma ahayn. soor waa ka xumaan. waxaasna waxaan kaa filaya ma ahayn. dowladnimada Soomaaliya waxaan ka filaya ma ahayn. waxaan sugaya waxay Jowhar markaa timaado asagoo maxbuusa inaad sanay keento cadaaladana u wajaho. laakiin wiilkaada adeerka u tahay inuu amnigaaga ilaaliyo waxa waaye annagana uu xamar nagu laayo halkaasuu Jowhar magan u tago wax la aqbali kara maahan. dowladnimona maahan. waxaana rajeynayaa inuu cadaaladda wajaho. arrinta aniga wax kastoo i gaaray wax weyn ilama ahan. waxa waaye dadka Soomaaliyeed maalin kasta dhib ku gaarayo ayaan ka mid ahay. dhaawac ay gaarayna wax weyn ma ahan. alxamdulilah lugta midigaan ka jabay. lugta bidixna rasaasa iga taala laakiin ma jabna. laakiin waxa eel iyo calooliyo ah oo aanan ka seexan karin oo aan aad uga calool xumaanaya anigoo dhaawac hadda isbitaal jiifa isbitaal idinkala dhex hadlaya ninkii dhiiggayga qubay anigii dadkii ila socdana na laayay baabuurtii dowladdana isbaarada u dhigtay inuu Jowhar maanta amniga madaxweynaha ku sugo wax oo la aqbali karo. maaragtay waxaanan rajeynaa maaragtay inuu maaragtay arrintaas wax laga qabto. asxaabta maaragtay meel kastoo aad joogtaan sida aad igu soo ducayseen ducadiina ilaahay waa ii aqbalay. maaragtay caafimaadkayguna wuu soo hagaagayaa. maaragtay wax weyna hadda maaragtay oo dhib oo hadda haystaa uma jiraan. maaragtay waxa weeye waxa i gaarayna waa wax un iska maaragtay waxa ugu yaray qof Soomaaliyeed gaara ayay ahayd. maaragtay alxamdulilah waa nabad qabaa. maalinkii waxay gaarayeen waxay ahayd maalinkii Muqdisho ay martigelisay shir madaxeedka urur goboleedka IGAD ee aan u dabaaldegayna u damaashaadayna guusha ay Soomaaliya gaartay. in Soomaaliya ay martigeliso shir madaxeedka urur goboleedka IGAD
isla markaana si nabada uu shirki nagu soo dhammaado annagoo ku qanacsanayn jidadka la xiray iyo shaqada ay ciidanku hayeen oo amniga ay ku sugayeen. taasaana keentay inaan dhigno baabuurta yaryarada aan ku soconnay. aniga waxaan ka mid ahaa dadka awood u yeelan waayey inay baabuurtoodii yareed ku socdaan maadaama jidadkii la xiray. duruuftaas waxay nagu qasabtay markii aan u baahanay inaan meel aadno inaan wacno baabuurta ciidanka si ay noo caawiyaan oo ay noo geeyaan meelaha aan rabno. runtii aad u mahadsan yihiin ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaan aniga oo gurigeyga jooga galabkii weydiistay inay caawiyaan oo ay qaadaan meelaha aan rabayna markaas geeyaan. saldhigga booliska waa bari runtii maaragtay waa aad ii caawiyeen. baabuur ay soo direen gurigeyga ka qaaday danihi aan ku qabsaday anoo hawl maalmeedkayga ku guday jira ayaa dhagar qabayaal uu ugu horeeyay Sani Cabdulle ay taalada darjirka dahsoon nagu weerareen. hubka la igu weerareen wuxuu ahaa hubkii qaranka Soomaaliyeed, hubkii aan wax ku lahaa, hubkayga ayuu ahaa, hubkii amnigayga in lagu ilaaliyo ayuu ahaa. waxaan filaaya ma ahayn askari isteelaha ciidanka xoogga u xiran yahay calanka Soomaaliya garabka ugu dhegan yahay inuu idilo. waxaan ka sugaaya ma ahayn. waxaan weligay ku fakarayna ma ahayn. laakiin ku qabatiya qadar allaba waa la qaataa wayna dhacday in askari calanka Soomaaliya uu garabka ugu suran yahay inuu dhashiika iyo saban iyo beekam intay igu garaaco anoo dhiig baxaya intay dul yimaado haddana moobayladayda iga qaato. runtii waxa weeye waxaan filaaya ma ahayn. weliba ayagoo yaqaana ay meeshaas maaragtay jawaabkeyga ku baateen. runtii waxay ahayd waxa oo aadka naxdinta u laho aan ilaa hadda maaragtay ka argagaxsanahay. maaragtay runtiina aniga waxaan u dhimanaya oon u shaqeynaya waxay ahayd qaranka Soomaaliyeed. haddana weli sidii aan ugu shaqeynaya imana niyad jebinayaan dhagar qabayaasha Sani iyo kuwa la midka ah qoryaha u sitay inay shacabka ku gumaadaan ima niyad jebinayaan. shaqadeeda waan sii wadanayaa. weligayna kama hari doono inaan sheego burcadaasi hubka sidata ee aan dowladnimada aqoon ee aan qarannimada aqoon ee tuutaha beenta u gashaday inay isbaarada dhigtaan, dadka dhacaan, dadka dilaan. weligay maaragtay ma joojin doono inaan sheego. maalinkii waxay gaareen waxay noqon doontaa maalin xusuus leh oo haddaan noolahay maalin walba aan maaragtay kasoo hadloon soo sheego Sani Cabdulle iyo maleeshiyaadkiisa iyo kuwa la midka ah dadka gumaada intaba. alxamdulilah walaalaha ay jecel meel kastoo joogtaan runtii waxaan idinkaga mahad celinayaa sida aad ii garab istaagteen, sida aad iigu muujiseen dareenkiina. aadaan idinkaga mahad celinayaa. waana maaragtay farxaday ii tahay. waxaana wax walba niyadeeda aan ka go-aynin habeenkii anoo dhaawaca markii la geeyay isbitaal Madiino dadka Soomaaliyeed ee halkaas yimid anoo og inay jidadku xiran yihiin oo meel la soo mara aysan jirin. waxaa runtii dhaawaca aan qabay hilmaansiiyey dadka isbitaalka meel ay kala istaagaan la waayey. runtii Qondha iyo Liibaan Caliyaro mas-uuliyiinteeda aada u mahadsantiin idinkana si aad igu soo ducayseen. waxay arrintaasu isbitaalka dadkaas boqolaalka Soomaalida ay halkaas habeenkii isbitaalka meel la kala istaagan la waayey ay ii muujisay dadka Soomaaliyeed shaqada aan u hayay iyo siday ugu qanacsan yihiin iyo dareenka walaalnimo ay ii muujiyeen. waxaa intaas ka badan Soomaalida kale caalamka ku sugana iyaguna habeenkii xitaa aniga markii teleefonadeydii burcadii Sani Cabdulle burcadiisiyaa qaadatay teleefonada dadka iga ag dhawaa tuhmayeen soo wacaye dhahaya hana loogu dhiibo. runtii ayaguna ii muujinaya dareenka walaalnimo. aada ugu mahadsan yihiin. waana maaragtay waana kaga mahad celinayaa sidaad ii garab istaagteen. runtii waxaan si gaara ugu mahad celinayaa saaxiibada sida gaarka iyaguna aan dhulka ii dhigana siday oo ugu horeeyo cabdifataax Ibraahim Cumar Sabriye Shaawey, gaashaanle sare Maxamed Aadan Koofi taliyaha hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha, Yaasiin Ganey taliyaha howlgallada Enisa, maaragtay Cabdi Xareed oo kamid ah saraakiisha sare Enisa, sidoo kale maaragtay
iyo farxaan oo isaguna taliyaha dhar caddaa runtii isaguna ilaa iyo hadda i garab taagan. waxaan si gaar ugu mahadcelinaa asxaabta iyaguna ila shaqaysa oo uu ka mid yahay cabdiqadar catoosh oo habeenkan dhaawacmay ilaa hadda dul taagan aan iga dul dhaqaaqin. waxaan u mahadcelinayaa foorno isaguna oo tiimka ila shaqeeya ka mid ah runtii isaguna siduu ii garab istaagay. asxaabta ila shaqeysa gabdho iyo wiilal maaragtay aaday u mahadsan yihiin siday ay dareenkooda igu muujiyeen ay ii garab istaageen. waa mahadsantihiin. ilaahay idin karaameeyey si aad ii garab istaagteen. maaragtay haddaad tihiin shacab iyo ciidanba si aad ii garab istaagteen aadaad ugu mahadsantihiin. aanbasa gurmadka degdega ah oo habeenkii ahaa wixii aan ugu jeclahay aan sugaya inay iqaadaan markii aan dhaawacmay ee iqaaday caawiye iyagana aadaan ugu mahad celinayaa. waxaan si gaar ugu mahad celinaya iyaguna dhaqaatiirta isbitaalka Madiino Dr. Maxamed Yuusuf iyo asxaabta